laakiin sameesh wax taagan waxay tahay qof walbow ku ixtiraam qofkan wuxuu yahay wuxuu doonaa aaminsanaa qadiyadu raba haysto qalbiga la iska madunshe kashada barin dulliga adoo dilan ba afkiyo dimna qosol lagu khasba السلام عليكم guys ولكن ودني بحر له soo dhawaada fadlan hadii aad ku cusubtahay channelkayga subscribe saar hadii aad hore u saartay mahadsan magacayga wadani bahar halka diga daawanaysin waa Mojis TV maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arin dhax wareegaya social media ama YouTube sida u taqaanaanba wuxuu isku qabsaday dadka oo dhan waxay isku haystaan maxaa loo baajiyay BK showgiisa qadiyad iyo cunsurnimo ayaa loo baajiyay iyo waxa loo baajiyay arimo kale waa la isku dhax wareersan yahay taas xagga sanaga dhig balse midda aan u soo laabanaa waxay tahay maxamed BK calankiisa maxaa lagu haystaa qof walba calan ayuu leeyahay sida xilligan loo jeedo ama Soomaalida ay u jeedaan aniga calan waa samaysan karaa ani ahaanteed hadii aan u baahanahay calankayga miyaa lagu la dagaalayaa maamay laakiin sameesh wax taagan waxay tahay qof walbow ku ixtiraam qofkan wuxuu yahay hadii ay jirto maxamed BK inuu dadka cunsiriyay ama dadka uu dhahay waa ni necbahay waa ni sanway adigu hana banaanin soo dhaweey haduu si ku necb yahay soo dhaweey waxa hore loo yiri xumaan wanaag lagu bedelaa wanaaguna xumaan loo bedelo qofka wanaagsan si kastaba mar walba wuxuu dareemi karaa qofka xumeynayo in uu yahay qof walaalkiisa kadib wuxuu isku dayayaa wanaag inuu ku soo xirigeliyo dadka uu wanaagsan maxaa lagu yaqaanaa qofka xun ayay wanaajiyaan showgaas in la baajiyo kuma fiicneen wax fiican ma ahayn gobonimada ma aha mana aha dadnimo bini'aadanimo Soomaalinimana ma aha sababtoo showga qofka qabsaday asigoo ku necb hadduu showga qabsado waa loo socodtuma waa la soo dhaweeyaa si uu u garto Soomaalinimada jaceelka ee leedahay iyo dadka Soomaalida sida isku jecel yihiin laakiin hadii aad adigu asigoo ku necb hadii aad xumaan sii tustid miyuu ku jeclaanaya waamay qofka haduu uu ku jecel yahay hadii aad xumaysid ku dareemayaa inaad xumaysay kadib wuxuu isku dayayaa inuu ku soo dhawaado laakiin se qof adiga ku xanaaqsanaan ku necbana hadii aad xumaysid kulata inuu ku soo jeclaanayo mis ku soo dhawaanayo maxamed BK waa la soo dhaweeyay waxa soo dhaweeyeen khalqiga ku nool oo dhan Hargeysa abid ma arkin qof sas loo soo dhaweynayo intaasna maxaa weeye waa dhiirigelin asiga la dhiirigelinayo farxad asiga lagu farxsan yahay waay waxa lagu haystay ayaa la yiri ama aan ka dhax arkay video marka daawanay calankiisa calankaygaas ayuu yiri qalad ma aha qofka calankiisa ku faani karaa adiga waxa rabtaa inaad Soomaaliland ama dadka Hargeysa ku nool inaad soo dhaweysid inaad farxad siisid Muqdisho mid baa wuxuu la dhax istaagay Muqdisho dhexdeeda calanka Soomaaliland asigoo wato cid la hadashay cid ku mashquushay cid la yaabtay ma jirin حتى والأكفري ولا لقص لا ولا شيء كسنية لقوم مشغولين حدا ومحاني كان لقوم مشغولية وأري أفكس كسو يري أو ومدى أفكس صومالي وكو هذا الشعب أري كسير وهستا صومالي ما ذا يدين هاي ورقي دمانتيسا وحان إذن لا يهاي أما أنا نيجو كتر سنة يا هذا الكان أما دت كان إسهستو أما صومالي لان صوماليا waxay isku haystaan ayka ay u taala balse dhalinyarada ama shacabka Soomaaliyeed ama dadka YouTuberada ah ama dadka hadalkaasi u bedelay si qaldan waxaan nigu oran lahaa ama ni dhihi lahaa qofka wanaag hala tuso jaceyl hala tuso hala soo dhaweeyo soo idinka ni jeclaado hadii aad si xumaysid hadii aad iska riixdin waligu sas ay u rixsanaanayaan caalamkii ka jirta gobol inuu go'sado caalamkii ka jirta gobol inuu dhaxana ku go'nay laakiin sabab ay ku go'ayaa dib ayaa loo geeysan karaa wax arin ay u tabanayaa taasi siyaasad ay u taalaa laakiin shacabkiinan waxa loo baahan yahay inaad soo dhaweysaan qofka qaldan asoo ku caynaya la soo dhaweystaa bal videogan daawada maxamed BK wuxuu ku hadlay idinku mahadsan bismillahir rahmaanir rahiim dhamaantay aad baa u mahadsantiin Soomaaliland ha noolaato calankeenu ha jiro dhammaantii qalbigaan idinka salaamaya farxad darteed waan dhici gaarayba ma sha Allah aad baa mahadsantiin idinkoo isku duuban haddii cunsur laygu sheegay iyo haddii
wax kale la sameeyeyba ka laygu dilay kaasuha waad aragteen qofka cunsuri hadduu yahay ee duusan ahaanba wuxuu ku tilmaamay calankaas ayaan u dhimanayaa ani fikraddeedu waxay tahay qofka wanaag ha lagu soo dhaweeyo hadduu xun yahay iyo hadduu qaldan yahay wanaag ha la tuso farxad iyo jacayl ha la siiyo si isaga u dareemo in la jecel yahay waxaad samayseenna wax fiican maaha inaad showgiis baajisaanna wax fiican maaha wuxuu doon ha aaminsanaa qadiyadda uraba ha haysto war si kastoo ha kuu caayo ha ku candhuufo kab ha kugu garaaco isku day inaad wanaag kusoo dhawaysid sababtoo ah xanuun horey ayuu tabanayaa qofka xanuun kale ha ugu darin halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fideogayga haddii aad fideoga ka heshay like haddii aadan ka helin dislike walaakin wadani baxar odin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu